السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كدب أرد أبار باكتشرت مقابلكم جودهان iyo qaasad iyo gobolada galbeedka oo dhan hadii saltaay daawad tahay abaartaasina waa abaar soo taxnayd muddo oo saddexdii iminka xilli ay sugaynaba raacdi iyo xagaagi iyo karantiib aanay jirin taa maamul ahaan waan ognahay malaha markii noogu horeysay guddi baan u saaray heer maamula heer gobol intaan xukuumaddu ku baraarugin guddidaasi rag hadda inagala socdaan baday nala socdaan هذا نيو عبد الرزاق guddidaas soo martay dhamaan deegaamada gobolka Koobay baahida inoo keenay waxay ilaa nafta waxba lagu celiyaa marba meelihii biyo la'aantu ka jirtay biyaha raashinka laga noolaan karaa laakiin biyo laga noolaan karo goobii biyo la'aantu ka jirtay bay soo celiyeen goobahaas aan imika 200 booyadood ugu talagalay oo degdeg ah marka imika 100 booyadood ugu horreysay waxaan umaleynaa dhamaadeen tii dambe ay socoto meesha imika عادي كم دوني نيمكان وعن ذيك دوني ناين الناشك تان لب كيدن هايستا سيدان بي وجزء جبنينا أيام رجيني نايم كدور كنا بعد صعد كي يلا بعد نيجي ما يركي مقالة قبلي ما يركي وجال هويسي يعني هوي وجال بعرض صار سدوي بيرا سدوي عافمات كا جودي حل بعرض يقول هذا دكان كا جودي دي أضياش كم يدين ما يركي ولا دكمة قبلي ما يركي ولا سنة دكمة waxaan u soo nooxahay inaan baahida ogaano imika qaybta labaad oo ah waxaan xaqiiqsan oo ognahay hadaa daawateen aan xalay iyo habeen horeyaan u TV-da ka sheegay imika baahida taala inay tahay baahidii baadka iyo raashinka baad inay tahay taasaan imika socodkay ku salaysay inaan indhahaygana ku soo aragno baaqan xoojino oo dadka dul tagno runtii wax laga naxan soo aragnay waxaan soo aragnay dad ayga oo hay tuulaha boqora iyo magaca bulshada tuulaha boqora ayaa ku soo dhaweynaya كبعدي حالة ما تاين جرونو دومية ماير ولا سعطان وحلا إلى هذا سؤال واحد هذا صار مغلى سؤال مدور وكوا ذاك السنة سويه أبار بكن هذا أبار تاس تديو حوله بوي سامس حوله بري بيتي بري ويكسر نقدرو سؤال واحد هذا أبار واحد كدشة هل كيكاك حيسمر كيكو سعليسو أي أبار تيجي كدشة halkii xoolii laga kixiyay abaar looga kixiyay baadana abaar loogu soo celiyay xoolii markii la soo celiyay abaartaas waxa weeyaan ilaa 3 sano way nagu maray waqti saacad hadda maanta wax lamida ma naaray dhulka waxa ka baxay raashin aan badnayn kal hor iyo ka sax wixii yaraaya ka baxay dadkii iyo xoolihii baa kala cunay rabadaanta markii ay soo galeysay lafta ilaa dhowr iyo 20 aqal ayaa reer halkaa gool ka sokeeyo iyo ahaan iyo waxa haynahan dadka waxaysta waxaan dhamaantood leenahay dadka maanta loo sara kaco wixii loo tari karayo wixii loo qaban karayo loo qabto intaas aan leenahay anoo hay tuulada waxaan ka warbixinayaa abaarta ballaaran ee ka jirta deegaankan sida aan wada ognahay dadku wuxuu ku nool yahay nimcada iyo roobka inoo daada dad iyo xoolaba haddii taa la waayo abaar baa dhacda abaartaasi waxay saamaysaa dadka iyo xoolahaba deegaankan waxa uu ku tiirsan yahay xagga dhaqaalaha xoolaha iyo beeraha marka aanu roob jirin labaduba ma jirayaan dalagii soo go'ayay bishan sidii caadiga ahaan jirtay dib buu u dhacay oo cawlaanka deegaanka wad arkaysan ta kale xoolihii daaqaad ee cuni lahaa markuu roobku doo iyaguna wax ka haajiray oo deegaamada kale la geeyay ilaa Itoobiya iyo wax nuxuusba ku dhacday oo iskaba dhintay ayay yihiin marka kolkay xoolaha iyo beeraha wixii laga helay dib u dhacaan waxa ku xigtay abaarta dadka sida aad la socotaan halkan waxaan shalay u dhawaaqnay qolada caafimaadka waxa jira 2 qof oo halkan soo qaadeen waa nafaqo daro marka ka dawladahan waxa loo baahan gurmad baa loo baahan yahay ilaahay baa gurmadka bixiyay in ay dawladdu dadka ka warhayso marka dhibaatada ka jirta waa sida imanka muddo dhaweys roob baa nagu daay haddana biyihii waa si dabayaaqo
ilaahay anagoo ka rajaynaya dee inuu roob degdegana siiyo markaa dadku wuxuu u baahan yahay dee wixii loo heli kara dawlad ahaan in lala soo gaadho baahida ka jirtaa deegaankani jaaraan runtii shaygii noogu sii daraa biyihii alxamdulilah aad baana loola soo gaadhay oo loola dadaalay waxaana soo gaadhay 13 lood baana soo gaadhay run ahaantiina dadku aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin run ahaantii baahida kale jirtaa waa baahidii cunnada weeyaan waa tii raashinka waxa weeye imika intii safety-ga ahayd xataa dadku isugu tala galeen markii hore waxa dhaafiyay xoolihii waxa dhacday in ariga loo karinayay looda iyadoo sanadka waxa la arkay la siinayay geeli markuu wax kale u cuno waayay waqtigan imika aynu ku jirana waxa weeyaan neef la baayacaya xataa ma jiraano waxa dhacday in xoolaha inta la geeyo sayladda iyagoo sidoodii la soo celiyo dadku ay raashinkii ay ugu baahnaayeen aanay helidii marka waxaan ka codsanaynaa madaxda iyo maamulka gobolka iyo hay'adaha caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah dadka loola soo gaadho cunada in loola soo gaadho cid kasta oo wax ka qaban kartaba aad iyo aad baan uga rajaynaynaa inay wax nooga yimaadaan insha Allah wabillahi tawfiiq carradaas wax soo biqlay male xoolihii baad ay cunaan ma jiro hilibkoodii wuu tegey haraggii baan imika la daba luudluudaya marka wixii laga qaban karayo ee ama dawladii ka qaban karayso ama dad loogu qaylinayo dadku baahi weeyaan biyo la'aan baad la'aan cuntadii dadka intaasba waxa weeyaan waa intaa ugu daran marka wixii la helayo ha loo gurmado dadka ha loo gurmadaan u leeyahay ya biyihii anaga hal booyadaan la soo gaadhay ya haysata inuu ogaado waxa weeyaan niyow abaar aad u baanbaa waddanka ka dhacday nana haysa waxaana loo baahan yahay in la isku kaalmeeyo kolba wixii dhibaato iyo abaar timaada horta madaxda iyo madaxweynaha way madaasan yihiin waxaanu doonaynaa in laga garab qabto abaarta dadka iyo dalka iyo xoolaha iyo xoog wax kastaba saamaysidii dadku waa dad xoolo dhaqataa waa dad beeraleeya dhibaato iyo hawl fara badan baa dee soo dhacday waqtiga imkaan taaganahay weliga hadda waa nagaa boolada dalba inaad arkaysaan ee malmo keentay aanu leenahay jiraan meeshood waa idinka arkaayo idinku ay dhiigna ku arkaayo dadkii dad iyo xoolaba baad iyo biyaba waa la goostay marka ilaahay baa doorta xaqiisa wax laga helaaye dee aadama waxa ma qoodi karaba dadku markii hore macnaha siday xoolaha ugu tacaalayeen baraashinkii u soo go'ay sanadkii hore u soo go'ay uu ka farabaxay xoolihii baa qaatay maanta waxay dadkaaba gurmad u baahan in magaraasay quud lala soo gaadho xooluhuna dee sidoo kale iyaguna waxa kuuli way sii leecanayaanba marka dee madaxda dalka maamulka dalka wafdiga ballaadhan intaba waxa lagu mahadnaqanaa sida fiican ee horta maanta noogu yimaadeen baaqi aanu jeedinay ilaa u aqbaleen dee maanta wixii aad ka qaban karaysaan inaad wax uga qabataan ummadaasi ayaa loo baahan yahay intaasi dee wixii dhibaatee ka jirtana waaqicina indhiina baad ku arkaysaa oo idinka arkaya dhulka dee siduu saboolka u yahay taasi waa taa dee idinkuna wixii aad loo sidaan ama aad loogu kordhinaysaan waanu dee magaraasa waanu idinka suganaa salaam waxaan soo gaaray oo caawimaha booyadii warta soo galay booyadii biyana soo gaaray waxaanay beeshu u baahan tahay horta caawin badan bay u baahan tahay sida raashinka oo kale macal raashinka dadka ku daran xooli marka aad iyo aad baahida ugu weyn waxa weeyaan xagga raashinka weyn marka hadda maanta sawirkiina iyo xamba waxa ka fiicnaa idinkoo raashin oo keeno halkan waxa weeyaan goobtan waxa la yiraahdaa ilka weyn waxa ka tirsan gabili degmada gabili waxa weeye abaar baa meeshan aad ugu dhufato oo deegaan far badan oo waxa yaal ilaa 800 oo qoys baa ka degay marka dadkan waxay badnaan jireen xoolo dhaqato iyo beerley labadaba walaal dhaqan jireen marka geeli yaari ma ahayn loodna waxa abaarta dhigay ugu jiraysa marka waxa dhacay dee abaartaasi alla riday oo magarasa nin lagu macnaanayo kaashi ilaahay marka weeyaan maalmahan aad u socdaasho iska qurban tahay biyo waa qoro in la helo laakiin dee xaqii raashinkii ayaa la isla basbeelo marka wixii loo hayay waa dhamaaday wixii yara garaamkii berigii hore marka dee u baxayna markaas wixii sidii kolba ama loo galaan dari qofka yar afurana galaan la siinay neef saacana galaan la siinay wixii marka gowba xagga raashinka wax la hayaa ma jiro
haruurkii yaraayee baxay xoolaa dhameeyey iyo dad dadku gaw u taagan yahay aanan ma jiraan sarac ma jiro waxaa iyo nabaddaa iyo khayr wala caafimaad qabaa gaajada maaha dadka caafimaadkooda baa la fiican yahay aad iyo aad baa loo fiican yahay gudoomiyaha degmadu naga caawiyay shidaalka shaqaalaha iyaguna aanu hawlgalka iyagii sidaa u wadno kulley waxaa loo baahanayaa in dee wixii gurmada iyo gargaara ee lala soo gaadhi karay lala soo gaadho sidaasaananu wasaaradda caafimaad ahaan dalbanayaa gudoomiyayaashana idinku sheegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii marday abaara yimaadaan cudurna kulley waa khasabda u imanayaa waxaana kulley loo baahanayaa barnaamijkii mashruucii nafaqa celinta marka insha allah tiyo aanu gudoomiyey gobolka iyo dhammaan loo wada socdo